ugaas maxamed ugaas axmed ayaa maanta degmada Cabudwaaq kulan qada sharaf iyo soo dhaweyn ugu sameeyay wafdi hogaaminayo suldaanka beesha reer Xaaji Salmaan Suldaan Mawlid Sheekh Jaamac suldaanka iyo odayaasha dhaqanka ee safarkan ku welinayay ayaa kulan la qaatay ugaaska beelaha sade waxgaradka waqooyi gobolka Galgaduud ganacsatada degmada dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada soo dhaweyn kadib waxa uu wareey madasha ka hadlay nabadoon daahir macallin faarax iyo nabadoon maxamed haraa iyo raaga goojo oo kamid ah qurba joogta ka soo jeeday deegaanka kuwaas oo si isku mid ah ugu soo dhaweeyay wafdigan dhaqanka waqooyi gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Cabudwaaq oo maanta kulankan ugu sameeyay waxaan halkaan ku soo dhaweynaynaa suldaankeena Suldaan Mawlid Sheekh Jaamac oo loo yimid degmada Cadaado iyo waftiga uu hogaaminayo oo lagu soo booqday degmada Cabudwaaq waxaan leenahay suldaan adiga waftiga soo dhawaada waxaan ugu soo dhaweynaynaa degmada Cabudwaaq waa degmadaadii waa dadkaagii si kalsooni ah ku soo dhawow suldaan adiga waftiga ku soo dhawaada aad iyo aad baan ilaahay baan ku mahadinaynaa ilaahay waa mahad iskale laakiin waa maalin farxad weyn leh in suldaankuna soo booqdo ogaaskiina martiqaad u sameeyo waxay ka dhigan tahay horumar waxay ka dhigan tahay isdhexgal bulsho waalidku isu yimaadaan carruuraha ku heshiiya isu imaatinka suldaanku iyo ogaasiyo isu yimaadaan waxay ka mid tahay in burcad iyo labeen bulshada dhexdeeda isu dhexmaraya in la joogteeyana waan jeclaan lahaa albaab fiican baad noo furteen waxaan ka rajeynayaa ilaahay inuu noo najixiyo waxaan u baahannahay bulshadeenna inaan nabad ugu yeerno meel walbana gaarsiino una sheegno walaalka haddii aad dishana waa kaa dhintay aakharana xisaab baa taalla adduunkana maadan liibaanin marka waxaan u baahannahay bulshadeenna inaan codkaa gaarsiino waftiga ka yimid Cadaadana ay u qabtaan shirar iyo kulamo dadkii oo ay yiraahdaan nabad baanu wadnaa nabad baan Cabudwaaq iyo deegaankeeda ka wadnaa nabadda inaad nala hirgelisaan baa loo baahan yahay ugaaskuna waxaan u tagay doraad baan u tagay nin dhalinyaro North America ka yimid way fakar badan baa ku jira fakarkaasna waxa weeye dadkan sidee looga saaraa meeshan iyo colaada iyo dib u dhaca oo horumar loo gaarsiiyaa oo iskuuladii iyo jaamacadii iyo ma aragtay meel sare loo gaaraa oo dadku ay israacaan waa inaan Cadaado tagaa aan guri ka dhistaa gabar ka guursadaa ku noolaadaa aysan muhiim ahayn in Cabudwaaq aan ku soo noqdo guri ka dhisto ninka Cadaado joogana waa inuu halkaan yimaadaa gabar ku guursadaa degaa noloshiisana halkaan uu ka ambaqaada hadduu ganacsi uu ku qanca arkaan halkaan inuu ka furo weey waxaan u baahanay marka bulshadeenna inaanu la hadalno nabadana ugu yeerno ana u sheegno walaalkaaga dariska kula ah cid kaaga fiican ma jirto walaalka kale meel kala degan oo qabiil aad isku tihiin waxba kuuma sameynaya kan dariska kula aba yaa kaaga dhow maxay yeelay xaaladda aad u la socdaa nabadoon maxamuud carab iyo nabadoon axmed hurre oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee safarka ku welinaya suldaan Mawlid ayaa ka hadlay ujeedada socdaalkooda isu imaadka aan isu nimid bariyahan ismaana soo booqa jirin isuma imaan jirin ma talaysa jirin isu imaadkaas waxa mas'uuliyadeeda lahaa ugaaska reer Sade iyo suldaanka Salmaan ilaahay mahad weyn ha ugu celiyo annaguna waxaan leenahay dambigooda Allah dhaaf intaas dabadeed annaga reer Cadaado waftiga uu hogaaminayo suldaan Mawlid ujeedkanagu wuxuu ahaa sahan nabadeed marka ugu horeysa beeshii reer Salmaan oo suldaanka iyo odayaalku ka socdaan salaan mugle ayay idin soo salaameen naga gudooma marka ku xigta waxay idin ka codsanayaan oo walaalihiin fariinaha idin soo dhiibaan cadaawadda aan xadka lahayn oo 40 jirsatay oo wax lagu qabanayo iyo wax lagu soo ceshanayo midna aan la arag colaadaas inaan dibcino inaan ka tanaasulno inaan wax qayb iyo walaalnimo iyo darisnimo u baxno waxay kaleeto oo ay soo fariintay 40 sano wixii dhacayay hadda maslaxad salkooda lagama sameyn karo waxay codsanayaan inta nool oo ka soo qaadnay inta nool in loo taliyo oo nabad lagu hogaamiyo dhacdooyinkii dhawaa oo dhiigoodu qoyan yahana masaalix laga sameeyo
beesha reer sade oo beel mug weyn ah iyo beesha Saleebaan oo dhalashana ka yar dad ahaana ka yar waxaan codsanaynaa ugaaska iyo suldaanka in nabadda gacanta loo geliyo annaguna inaan kula xisaabtano ilaahayna waa kula xisaabsanay mas'uuliyadda ayaga qaaday annaguna aan ku taageerno ayaguna mas'uuliyadda ha qabteen annagu waxaan ballan qaadaynaa inaan mas'uuliyadda xaggeena ka qaloocan adinka beerooyinta reer sade waxaan idinka codsanaynaa maadaama aad naga fac weyntiin nagana badan tihiin adinkaa hoggaanoo ah wax alla wixii aad noo qaadaan ayaan wada qaadanaynaa inaad derisnimadii noo soo celisaan inaad walaalnimadii noo soo celisaan anigu tuuramen aniga maxamuud carab baa la yidhahda tuurameeraan ku dhashay caadu waaqna ayadoo nala gelbinayo oo qolo xoogaana dhex maray aan xisaabtamayno ayaan indhahayga ka qaaday 40 sano waana meeshaan ku dhashay adinka waxaan maqlay faraca sade wuxuu ka soo jeedaa wixii camaaro ka sukeeyay intaas ayaa deegaan ku soo marteen intaasaan dadnimo iyo derisnimo wada ahayn war walaalayaal colaadda aan gadaal ka tuurno waxaan leenahay dhaqanka reer Cabudwaaq maanta Cabudwaaqan joognaa farxad iyo farxad yaalo way ugaaskii oo gogol dhigay beesha sade suldaankii hogaaminaya beeshii reer Xaaji Saleebaan Cabudwaaq lagu marti qaaday aayahooda iyo derisnimadooda iyo nabadooda ay uga tashanayaan waxaad u weyn waaye waana soo dhaweynaynaa waana la qaadanay waana kula shaqay doonaa insha Allah waxaan leenahay badin mayno dadka na dhageysanaya oo labadaas beelood ka dhashay waxaan rabnaa sida raggii ugu horeeyay u sheegay ugaaska beesha sade iyo suldaanka laba boqor loo isku baadishaa la yiri in la shaqeeyo dhankeena reer Xaaji Saleebaan waa la shaqeeynaa waana aqbalnay waana u maaragtay u dhagalnuglaad doonaa soo dhawaada Suldaan Mawlid Sheekh Jaamac ayaa ugaaska iyo dhaqanka deegaanka uga mahad ceshay soo dhaweynta iyo martiqaadka wanaagsan ee lagu sameeyay deegaanka sida alla socotaan annagu hadafkeena iyo ujeedkeenu wuxuu yahay inaynu helno dal nabada iyo dad nabada iyo dawlad nabada inaan helno wey sidaas daraadeed wax walba waxa laga bilaabaa meel ay ka bilowdaan baa jira aas ah ugaaska waxaan ognahay inuu yahay dhaqanka ugu waaweyn maamulka Galmudug xaruntii dhaqankana waan booqanay meel aad u qurux badan oo mataqaana hadee qofkii arkaahay uu fahmayo ilaahay waxa weel weyn baa lagu baryaa weel weyn oo lagu talagalay in ummadda Soomaaliyeed isugu keeno oo mataqaana daal ku rooyahay wax kasta oo Soomaaliya ka dhaxeeya ay ku xalistaan ayaa ugaasku nageeyay iyo mataqaana hadaan golaha guurtidu oo aragnay marka arimahana wadnaana wax u yihiin gobol xaar ummad markii la isku keenayo waa in la gobol xaara marka sidaas daraadeed waxaanu 100% aanu ku baaqaynaa ummadda degan reer Galmudug meel kasta ay joogaan in ay nabadda ismadu ay wadaan ay qaataan in ismada la shaqeeyo sida mataqaana dadaalka iyo kartida iyo alla ku kalsoonaanta ku jirto ee aynu ku marayno mataqaana meelo badan oo aanu rabno inaanu mataqaana daal ku roon wax badan ay noo hagaagaan in bulshaduna ay kaalinkeeda qaadato sidaas daraadeed ugaaskana waxaan ka codsanaynaa ugaas maadaama aan wax badan ismaqalnay maantana aan kula joogno maadaama aad tahay ugaaskii maadaama aad tahay dhaqankii Galmudug annagu waxaan rabnaa inaan kula shaqeyno aduna aad horyaalkii noqoto shaqadaasina daal ku rooyahay sida aad nooga jeedo oo aanu kugu nimid faada maanta aanu caawda kugu nimid ayaa waxaan diyaar u nahay inaan meel kasta kula tagno oo shaqada aan kula wadno dhamaanna waa inaan bulshada qaybaha kale ka dhiman nabadayntooda waa inaan ka shaqeynaa ugaas Maxamed ugaas Axmed ayaa suldaanka iyo wafdigiisa dhaqanka kaga mahad ceshay doorkooda nabadaynta dadka walaalaha
ee deegaanada dowlad goboleedka galmudug gaar ahaana waqooyiga gobolka galgaduud oo haatan safarkooda uu ku qotomay suldaan adiga iyo waftigaaga soo dhawaada degmada caabudwaaq ku soo dhawaada waqooyiga galguduud ku soo dhawaada deegaankiinnii ku soo dhawaada sida hadda la idiin soo dhaweeyey waan isleenahay waxay nagu ahayd xoogaa kadis intaa ka badan baan kugu soo dhaweyn lahayn insha allahu tacaala waana rajaynaynaa intaas ka badan inaan kugu soo dhaweyno adiga iyo salaadiintaada imaanshaha aad timid degmada caabudwaaq waxay muujinaysaa ama caddayn u tahay in deegaankan uu nabad yahay oo waxyaabaha dhibaatada iyo caqabadaha la sheegaayo ay ku kooban tahay dadka masaakiinta ah ee riimiyiga ah laftigeedana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa haddii ilaahay idmo sida hadalkaagii uu ahaa inaan nabadooda iyo maslaxadooda laga shaqeeyo dhaqanka ma laha xuduud meel walba uu joogo midba midka kale waxaa bilshardi ah inuu u tegi karo waxaan celin iyo cabsi lahayn ninka isimka ah oo soomaaliga ah oo dalkiisii joogo oo deegaankiisii joogo inuu bulshadiisa soomaaliyeed meel walba ugu tegi karo waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo isimada soomaaliyeed khaasatan isimada reer galmudug inay isku socodka isdhexmarka ay badiyaan waan kaaga mahad celinaynaa mar kale inaad nagu soo booqatid gurigii dhaqanka soomaaliyeed oo aan dhaqaalaha intaa leeg waxaan u gelinay ay tahay inaan ku midayno isimada iyo dhaqanka reer galmudug oo aan rajaynayna haddii ilaahay idmo inay saldhig u noqoto reer galmudug oo dhanna aan ka codsanaya haddii ilaahay idmo inay sidaas si lamid ah meel walbaba guryo dhaqan deegaamada laga sameeyo aad iyo aad baan kuu soo dhaweynayaa waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo sidaas si lamid ah inaan deegaamada kale sida cadaadoo kale dhuusamareeb guraceel gaalkacyo ilaa hobyo inaan tegi doonno haddii ilaahay idmo horeyba qaar ka mid aan u tagnay balse tigitaankan mid ka duwan tigitaanadii hore baan rajaynaynaa inay noqoto haddii ilaahay idmo aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa imaanshaha degmada caabudwaaq waqooyiga galguduudna waan rajaynaynaa qeybo kaleoo ka mida inaad sii tegi doontid dadkan dad walaalo ah weeye waa dad wada dhashay isku diin ah isku dhaqan ah isku af ah